ciyaaraha ugu weyn iyo kala iibsigu ayaan eegaynaa iyadoo la ciyaaray ciyaaro ka tirsan horyaalka Premier League nimankii Manchester United ayay baryahan u saaran tahay xilli Manchester City ay ku soo noqotay wadada guulaha kulay Manchester City waxa ay ka adkaadeen oo ay 4 gool mataqa 3 gool ku garaaceen Southampton inkastoo City ay gool u dhaliyay Silva hore laga bareejeeyo baryahan City dib ku haysta wuxuu yahay markay gool dhaliyaan ma ilaashan karayaan goolkooda waqti badan ba markuu Silva gool dhaliyay ciyaartooyga Perry Hodgson ka bareejeeyay ciyaarta wallow City ay mataqaan intuu qaybta hore ciyaartu dhamaan ay 2 gool heleen mid uu iska dhaliyay ciyaartooyga Prowse oo aan gool ahaa iyo Aguero oo muddo baryahan suu madax u cadeystay gool aantu bay hayso shalay suu bax buu yiriyo asaga waa saddexii ciyaarta 3 gool iyo gool bay ku garaaceen shalay Manchester City kooxda kubadda cagta Southampton marka Manchester City khamiista soo aadan waxa sugaya kulan weyn oo horyaalka Premier League waxaanay la ciyaarayaan Liverpool haddii Man City ay Liverpool meel iska saari weyso oo yaani Man City haddii kulankaas ay badin weydo marka meesha Real ma yaalane meesha Real ma yaal Liverpool faraha laga saaro yaani City hadii ay shaqo u diyaar tahay oo hunguri u hayo oo Real ay doonayaan inay difaacdaan waa inay mataqaana habeenka khamiista soo aadan oo 12 la dabinimo la ciyaari doono waa in nimanka Liverpool garaacaan marka hadaynu dhicin oo iyagu laga badiyana marka Guardiola wuxuu yiri Real ma rabno hadaba Pep Guardiola oo ciyaartu kadib hadlay wuxuu yiri hadii ay Liverpool marka aan la ciyaarayno naga badiyaan markan oo yaani guul dara ay naga soo gaarto kulanka Liverpool oo uu ku tilmaamay Liverpool hadda tahay kooxda adduunka ugu fiican Pep Guardiola Maxamed ma haysikir wala turi wallahi ya wallahi Liverpool shabariya wala wada naxaya qay Liverpool shan Maxamed qadar kaliis Maxamed ma ku tuurin wallahi billahi nimankan Maxamed weyn leeyin bariyahan Pep Guardiola wuxuu leeyahay taqaana kooxda adduunka ugu fiican marka macnaha bariyaan ciyaar maskaxeed baa la isku gaadaya moogtay ciyaar maskaxeed baa ay wadaan Klopp iyo Guardiola maalmood mu Klopp wuxuu yiri Man City lama garaaci karo iyadoo baa is garaaci karta markaas City lagu diray kooxii dhamo ayaa Man City laba ciyaar fiixta la garaacay hadda Guardiola wuxuu leeyahay taqaan ciyaar maskaxeed kale wada wuxuu leeyahay Liverpool huwa hadda kooxda ugu fiican adduunka uu leeyahay macnaha wuxuu ku diraya malaynaya kooxaha kale ciyaar maskaxeed ayaa la isugu hayaa halkan Premier League marka Guardiola wuxuu leeyahay hadii ay awoodi weyno يعني حتى إنهم بدي ما هنقوله هدي أي دعوة كلهم كليفربول إن جول دري نجسوا جارتو يعني ليفربول هدي نجرا عضو مركب خلاص هوريال وارد ما هذوله شخنا كمالي هوريال فرحان كقاعدنا هوريال أنا قول لي ندد أركتان بل لا ولا يلين مركب جوارديولا ورعدو يري هدي نجاب بديان كلهم كان أو يعني ليفربول أي نجات كاتو مركب هوريال مجرى أنا هوريال شخ كمالي نقوله يا معنا باب جوارديولا مركب جمع وايس ديبا ويرهدي ما تقانا يقبض بديان مركان يعني مركان مسيتي دبعون فرا بدن با laga sar maraya hadda waxa laga sareeyaa masjid 7 dhibcood hadda waxa laga sar maraya 10 dhibcood yaaba soo haray markaas waxa soo haray hal Manchester United iyo hal Chelsea soo haray iyo Tottenham lagu tashan karinba sidoo kale baryahan ana la waa curatay wariyaha Manchester waa kacsan tahay wallahi yaan ciimamadooda garabka lagu haysan karin Manchester United hadda waxay adkaatay kulankii saddexaad oo xiriira Pogba ayaana baryahan u kacsan oo 2 gool dhaliyo ka war maan lawidna 2 gool buu dhaliyo macnaheedu ma dareemaysin miya watan idin sheegay Ferguson ba Manchester hawsha la wada waxa la inta xilciyadu ka dhamaanayo ardaygaagii hore Solskjaer ba hawsha wada wiilkaagu wayaan kaalmay baa leeyahay marka meel Ferguson uu soo galay macnaheedu waa wax kale لا شك فرغوسن meeshu yimaado waxa lagu arkaya koox adag oo wax qabsan karta la shak waa tababar ugu fiicnaa taariikhda horyaalkan soo maray 13 Premier League baa la haystaa ninkaas kaas waa tagay kabtiis way ka weyn tahay 13 jeer Premier League ninkii qaaday Ferguson bariyahan asaga tababarka Manchester wax ka bixinaya oo xataa hawsheedii iyo shaxdeedii iyo wixii wax ka dagaya Ferguson baa soo noqday Manchester is back waa soo noqotay iyadoo marka Manchester United 4 gool iyo gool ku garaaceen Bournemouth Pogba ayaa 2 gool ciyaartu dhaliyay mid kale waxa raacsaday Rashford midna waxa dhaliyay Lukaku inkastoo Eric Bailly roos qaatay war Manchester bariyaan waa kacsan tahay xitaa Chelsea inuu gool bay ku adkaadeen uu dhaliyay N'Golo Kante oo ku jira xil ciyaareedkiisa ugu fiicnaa ee Chelsea waligi intaan gool xil ciyaareed maanu dhalin sanadkan Kante aad buu u rooyahay يعني حل عيارات كانوا واكي ugu badnaa ee wiliga Premier League uu gool badan ka dhaliyo xil ciyaareedka 2008 Kante 3 gool ayuu Premier League ka dhaliyay xil ciyaareedkiisii hore 2005 2006 2007 xil ciyaareed kasta hal gool buu dhalin jiray laakiin sanadkan Kante 3 gool buu sii maraya marka Blue waa adkaatay inkastoo 12 dhibcood ay ka dambeeyaan nimanka Liverpool marka Pogba fiicnaana waa soo noqday hadda waa kan ma taqaana Mourinho un ba wiilkan waalay ileen Mourinho asagu 9 dagaal buu hayaa inuu ma taqaana ciyaartoyga iska caayo un ba ka xanaajiyo waa ka fiiri Pogba fiican baa soo noqday fiiri Pogba waxa lagu leeyahay xil ciyaareedka kanu imisa gool buu haystaa ma taqaana yani 14 ciyaar la soo dhaafay ee Mourinho kooxdu jooga hadda yani 14 ciyaarood Mourinho koos ciyaaray Pogba kali wuxuu dhaliyay 3 gool hadda 3 ciyaarood oo koos ciyaaraya Solskjaer
bogba wuxuu dhaliyay 4 gool waliba 2 kulan isku xigmeen 2 gool ka dhaliyay fiiri marka 14 ciyaarood oo Mourinho sanadkan ka hoos ciyaarayay ayuu 3 bis dhaliyay hadda waa ka fiiri 3 kulan buu 4 gool sii maraya ninka leeyahay Pogba marka waa la dareemayaa Solskjaer inuu ka karoon yahay midka dagaalka iyo buuqa badnaayay Mourinho xuli xataa fiiri Manchester ciyaari ugu dambeeyay saddexda aha Manchester United waxay dhalisay 12 gool bay dhalisay waliba 3 gool baa laga dhaliyay Manchester iyadoo aan bas dhiganaynin oo goosha difaac gelinaynin ayaa 3 gool bis laga dhaliyay ka war xataa fiiri Master Safe-kiisu ku soo noqday Digayo nin fiican buu ku soo baxay baryahan ninkii Pogba waa kacsan yahay Pogba maalintu fiican yahay waxaad u malaysaa inuu yahay xidiga khadka dhex ugu fiican ee qaaradda Yurub macnuhu maalintu Pogba fiican yahay Manchester ayaa haysata ninka khadka dhex ugu fiican qaaradda Yurub macnuhu sida waxa yiri Neville wuxuu leeyahay maalintu Pogba u saaran tahay khadka dhex ugu fiican isaga weeyaan qaaradda Yurub Ferry Pogba xilli ciyaareedkiisa la waqti milixdii 5 gool buu dhaliyay 27 gool buu dhaliyay xilli ciyaareedkan 7 gool ayuu sii maraya Pogba waliba Manchester in ay ku dhaliso 3 kulan 12 gool waxa lagu leeyahay waa wax kale waa wax ugu dambeeyay 2 ugu dambeysay Manchester United 3 ciyaarood isku xiga in mataqaana 12 gool ay ku yaani 3 kulan 12 gool ay ku dhaliyaan waa markood ugu fiicnaa marka waliba Manchester waxa laga dhaliyay bis marka 12 gool bay dhaliyeen 3 ciyaar u dambeeyay waxa laga dhaliyay 3 gool bas baa laga dhaliyay basna ma la galooyo difaac lagu jiro sidii Mourinho oo kale weerarkana waa iska socdaa wacad buu ku maray Solskjaer wuxuu yiri kooxdan weerarkeeda waan ku soo celinaya Solskjaer ayaana noqday macallinkii saddexaad ee taariikhda Manchester wada baday saddexdiis ciyaar ugu horeeya Premier League kadib Matt Spobi iyo Mourinho hadda Solskjaer baa ku biiray liiska ka xitaa Mourinho fiirsi intaan kaliya kuma koobna Mourinho maadaama aan ku yiri yaani haddii aan ku yiri Mourinho 14 ciyaarood xilli ciyaareedkan Pogba tababaraha u ah yani 14 ciyaar la soo dhaafay uu Pogba ka hoos ciyaaray Jose Mourinho xilli ciyaareedkan wataan ku yiri 3 gool buu dhaliyay hadda Van Gaal uu 3 ciyaarood ka hoos ciyaarayo maya waa Solskjaer 3 ciyaarood ka hoos ciyaarayo 4 gool buu dhaliyay aan ku yiri okay inta kaliya ma aha war 20 ciyaarood ee la soo dhaafay uu Jose Mourinho joogay inta gool uu dhaliyay Pogba waxa ka badan intuu hadda ku sameeyay 3 ciyaarood fiiri 4 gool buu haystaa 3 kulan uu Pogba hadda u joogaa 20 ciyaarood oo la soo dhaafay Mourinho كوس عياري بوجبا وحول دليا كلمة تقانا سدح جول بسود دليا مركب بوجبا هذا يفي عن يحي مركب بريمير ليج وحالة دي سواك هايو كل هدي مانشستر شقة يربطوا وين مكها جراعان هدي إن جراعنا ويقول له جراعنا بل هريال كفرها لقى صار ليفربول شقة مربتينه كل ليفربول سنة كان قاعدة جوش وحويان دفاع عضك iyo waliba weer qatar badan Fandaaj ayaha meeshu joogo shub ah asaa ku celinayo saan gacanta kugu dhigayo MSN waa ka shaqaysanayeen sidii Arsenal kale 5 gool ugu shubayaan marka difaac adag iyo waliba weer qatar badan oo goolasho dhalinaya waa qaacidada guusha kooxdan uu ku tilmaamay Pep Guardiola inay tahay kooxda ugu fiican adduunku laakiin Pep Guardiola waxa uu ka gaabsaday inuu cadeeyo in De Bruyne uu ciyaari karo kulanka Khamiista soo aadana ay ciyaarayaan labada kooxood City iyo nimanka la yiraahdo Liverpool wuxuu sheegay inaanu cadeyn karin inuu ciyaari karo in kale balse uu sheegay inuu dhaawiciisu adkayn marka Guardiola ilaa hadda shaki buu sii gelinaya xaaladda ninka la yiraahdo De Bruyne wuxuu yiri idima sheegi karo hadduu ciyaari karo hadduu ciyaarin laakiin xaaladiisina inuu adkayn baan ogahay uu leeyahay marka ninka la yiraahdo hadduu De Bruyne ciyaarta sii seego shaqamatal meesha cunugan dahab waa lugtiisa waa la saarayahay malaha kan ba Liverpool haban kara laakiin hadduu kan sii ciyaarin Liverpool dhib badnaa sanadkan warka xuriyal u socoto waxaad ku dareemaysaa kulankii la rabay in meel la saaro ayaa kooxdii waxa ka dhacmay ciyaartoy muhiim kulay De Bruyne hadduu ciyaarta maqnaado malaha qayb muhiim oo Man City baa maqnaanaya warar kale iibsuguna maanta Varane wuxuu doonayaa baa leeyahay in waqtigiisa ku dhameeyo kooxda Real Madrid oo uu meel kaga tagin Ramos buna arka u sheegay baa leeyahay kooxaha City Madridna waxay isku haystaan ciyaartoy u ciyaar Real Betis oo lagu magacaabo Junior Firpo oo ka ciyaara dambeedka bidix iska wuxuu cadeeyay inuu ka tagay Real Madrid waxaanu sheegay in Madrid uu ku faraxsan yahay uu la joogayo xilli la lahaa waa baxaya iska wuxuu leeyahay meesheedan ku qanacsanahay Manchester United waxa la sheegay markaan ay ku soo beertay doonista lagu jiro ciyaartooyga Mauro Icardi oo ah nin reer Argentina maalin la weyn Ingiriiska aadayay marka wallahi warba waxay leeyihiin ninka hadduu maalin la weyn Ingiriisku tagay armay macquul tahay in wada hadal hoos ay jiraan oo Madrid ninka lagu garaaci raba marka Manchester United waxay doonayaan in warku ay sii adkeeyaan oo waxay la leeyahay Icardi bay rajeynayaan gacanta ku dhigaan xilli ciyaareedka ciyaartooyga Arsenal ee lagu magacaabo El Nino waxa lagu baaqay inuu isaga tago kooxda Arsenal uu kooxo kala raadsado kaliya xilli ciyaareedkan hal ciyaarood ayuu saftay ninka masaarida mid kamid ah tababarayaashiisii hore ayaan ugu baaqay in ninka la yiraahdo El Nino u roon tahay si uu kalsoonidiisa dib ugu helo ama inuu abaah ku baxo ama uu toos uga tago Arsenal waxaana sida yiri Hamdan Nuh oo ahaa macalinkiisii hore ee kooxda Al Muwakkilun Barcelona ayaa ugu dambeyntii beenisay wararka sheegaya in heshiis ay la gaareen ciyaartooyga Rabiot inkastoo Barcelona ciyaartooyga aad u damacsan tahay haddana Paris Germany ayaa Barca ku dacweysay in Barcelona ay xeerkii jibisay oo ahaa ciyaaryahan koox u ciyaarayay si hoose ula xiriiraan si ay Barca u beeniso hadalka waxay tiri anagu markii ugu dambeysay oo aan Rabiot la xiriirno waxay ahayd
bishii Agosto waxaanay meesha ka saareen inay jirto wada hadallo mataqaana ciyaartooygu wixii inta dhaafsiisan ay la sameeyeen marka Paris Germain baa ku dacweysay Barcelona xeerkii ay hoos martay laakiin Barcelona waxay cadeynaysaa in wali aanu micnuhu mataqaana aynu xeerkii jibino rabitaanka Barcelona wali uu jira Rabiot inay qaadan kartaan waa suurtagal wali laakiin waxay meesha ka saarayaan in arika uu jiro balse wali way doonayaan ciyaartooygu balse warkan waxay ku qancinayaan Paris Germain waxyaabaha kale ayna maanta weyn ciyaaraha waxa yaab leh Cristiano Ronaldo isagoo ka tagay Real Madrid haddana inuu yahay ninka ugu goolasha badnaa sanadda 2018 micnuhu waxa la dareemayaa Real Madrid inay ku qaldaneed go'aankii inuu master lama joojiyo ay fasaxaan ma ogtahay Ronaldo hadduu dhalin gool asagu waa dhintay sidaas daraadeed Real Madrid 2018 waxa la soo saaray ninka ugu goolasha badnaa Ronaldo anagoo og inuu Madrid u ciyaaray 5 bilood ka hor ciyaar ugu dambeysay oo Juventus ugu beeray sanadkan gudihiisuna qayb Juventus u ciyaaray qayb Madrid u ciyaaray still waa ninka ugu goolasha badnaa sanadka 2018 Ronaldo ayaa dhaliyay 28 gool sanadkan 2018 dhamaad u dhaliyay Real Madrid still isagoo ka tagay kooxda ayuu yahay ninka ugu goolasha badan xitaa waxa ku xiga Bale oo dhaliyay 27 gool Benzema wuxuu dhaliyay 18 gool Ramos 10 gool Asensio wixii ka hooseeyay oo iska hooseeyaan marka Ronaldo ayaa still wuxuu yahay ninka ugu goolasha badnaa 2018 dhamaanaysa 28 gool uu Madrid u dhaliyay 22 ciyaar uu ciyaaray Bale baa ku soo xigo 27 gool dhaliyay marka Ronaldo asagoo ka tagay kooxdan oo Juventus ku biiray حتى ولا سوق بالله marka taa waxaad ku dareemaysan inuu ahaa ninkaas konton gool dhaliyo aan la qaban karin oo Madrid aynu heli karin isagoo kale waxba kaaga sii dara ma taqaana Madrid iska dhig meelba asoo ka tagay uu ka gool badan yahay ciyaartooygu jooga oo dhowr bilood ka maqnaa waxa uu ka sii gool badan yahay Madrid Juventus hadda uu tagay sanadka 2018 ayaa kaliya hal ninka gool badan ba ninka ugu goolasha badnaa Juventus sanadkan 2018 wuxuu ahaa Dybala 16 gool buu dhaliyay Ronaldo Juventus 15 gool buu dhaliyay waa ninka labaad ugu goolasha badnaa Juventus sanadka 2018 ka waran Juventus hadda loo tagay ayuu xitaa wuxuu ka yahay Ronaldo ninka labaad ugu goolasha badan yani Juventus ay weeriyaan fiican ma qabanaya ilaahay amarkii sanad dhan Dybala ugu gool badan 16 gool bis dhaliyay Ronaldo shil yimaaday 15 gool buu haystaa ninka labaad Juventus ugu goolasha badan marka Ronaldo la shaki waa weeriyahan aan waxna laga qaban karin oo aan la joojin karin Michael Owen ayaa isna saadaal ka bixiyay ciyaaraha Premier League sanadkan Owen oo Liverpool u soo ciyaari jiray ayaa saadaaliyay Premier League sanadkan in lagu kala dhameysan doono horyaalka sida kan Liverpool ayuu iyaga ayaa horyaalku qaadi doona City ayaa labaad gali doonta Chelsea saddexaad bay ku dhameysan doontaa Spursna afaraad taas waxay ka dhigan tahay Arsenal iyo Manchester United inuu booskaba ka saaray wuxuu yiri iska Europe League yani Europe League ciyaara khamiisley noqda dhanka kalena ciyaartoogii hore Liverpool Steve McManaman ayaa saadaaliyay Liverpool inay jabi doonto hadii ay ka dhaawacmaan oo isku waqti ay ka dhaawacmaan Mohamed Salah ama Van Dijk waxana uu sheegay in labada nin ee Liverpool wada midna difaacu adkeeya midna goolashu weerarka difaacu ka soo horjeedo ka nixiyaayo cabsi geliya marka wuxuu leeyahay McManaman anigoo Liverpool ah ciyaartoogoodii hore waxaan qabaa hadii labadaas nin ay Liverpool ka dhaawacmaan inaan horyaalku guuleysanaynin marka wuxuu leeyahay McManaman labadaas nin hadii Liverpool ka dhaawacmaan waxaan qabaa uu leeyahay inaan horyaalkaas markan ay ku guuleysan karin wuxuu yiri hadii mar wada dhaawacmaan waxa meeshu taala inaan markan wax qaban karin xitaa wuxuu leeyahay anigoo og in Liverpool hadday horeyso still waxaan qabaa uu leeyahay Man City inay markasta u cadcadahay ku guuleysiga horyaalkan dabcan wuxuu leeyahay hadda xaqiiqadu Liverpool waa duuleysaa laakiin waxaan sheegi karaa in Man City ay yara horeyso yani rajadu marka laga hadlo horyaalka gurigeeda ayaa lagu ciyaaraya markan buu leeyahay waliba McManaman wuxuu leeyahay hadii xilligan ay ahaan lahayd Abriil oo intaan dhibcood aan horyaalka ku hogaamin lahayn intaan qeylay waxaan dhihi lahaa yes horyaalkii waan qaadnay horyaalka waa ku guuleysanay laakiin wuxuu yiri ayadoo hadda Janay la marayo ma qabow leeyahay horyaalkan wali in lagu kala baxay yani wuxuu leeyahay Abriil ahaan lahayd waxba ahaan lahaydba marka McManaman wuxuu leeyahay Salah iyo ninka kale Van Dijk oo dhaawacma ayaa Liverpool khalaas ka dhigi kara كاكا wuxuu leeyahay xirfadeeda Manchester waa xirfadeeda Real Madrid waxa ku dheelay ninka leerado Mourinho wuxuu yiri laba arin ba Madrid ugu fiicnaan kari waay kaka code wuxuu ahaan dheereeya Messi Ronaldo hortooda la cimaamatay ninkaas uu jiri jiray labadan in hadda Ronaldo sanad Messi san xataa bari waxay ahay ma jirin markuu kaka wax kale jiray laakiin isagoo fiican Madrid ku biiray laakiin waa ku wareeray Madrid follow buu ku noqday wuxuu yiri laba arin ba ka dambeysay midda dhaawac iyo Mourinho oo xirfadeedii dilay 3 sano isku dayurina Mourinho qanciyo Mourinho ba qayb ka awr raga xirfadeedii dilay marka Mourinho asoo waliga waxa lagu eedaa inuu rag xirfadooda dilaaba Real Madrid oo lagu daray Espanyol oo lagu daray Real Betis ayaa noqday saddexda kooxood 2018 aan wax roos la siin horyaalka Spain kooxuhu kala dhan roos ay qaateen oo Barca ay ku jirto marka lagu daro Mönchengladbach oo Jarmalka waa afarta kooxood ee sanadkan 2018 aan wax roos la siin maalin dhawaad wataan ku sheegay Pulisic marna Liverpool baa la qoray inuu heshiis la gaaray marna Chelsea baa la sheegay hadda saak waxa soo baxaya markan in ku dhowdahay la wareegidiisa Chelsea weeriyaan hore oo reer America ah ama Mareykanka u ciyaaray ayaa hadda cadeeyo bartiisa ku cadeeyay in Mikel Pulisic uu ku dhow yahay kooxda Chelsea weeriyaanka kan waxa la yiraahdaa ciyaartooyga kan waxa weeyaan Aidu Johnson wuxuu hore ugu ciyaari jiray kooxaha Ingiriis oo ay ku jireen Cardiff iyo Preston waxaa ninkan uu bartiisa ku soo qoray Pulisic oo xireen fanaanada Chelsea qayb ka Chelsea santahay qaybna kama taqaana ay ka tahay Borussia Dortmund waxaanu ku soo qoray wuxuu leeyahay waxaad u socotaa koox weyn
ma sugi karo inaan arko adigoo ka garab ciyaaraya Hazard marka ciyaartooyga Mareykanka ayaa qash ka bixinaya wiilka Mareykanka 20 jirku inuu Chelsea ku biirayo marka ninku isha laga soo xiganayo waa nin Mareykan ah marka Borussia waxa leeyahay halka uu ku dhawaanaya Bakayoko wuxuu leeyahay AC Milan baan iska sii joogayaayo ilaahay amarkii Bakayoko waa kii Chelsea follow ku ahaa hadda Milan buu iska sii joogaya Milan waxa haysta Bakayoko miya ilaahay amarkii waa socodlaada ay kooxdii dhameeday اوكي janaayo maadaama la galayo maalinta beri talaadada hadaba kooxaha Premier League kooxdaadu iyay soo qaadanaysaa yaana ka tagaya aan ku hormaro kooxda kubadda cagta Arsenal waxa la leeyahay waxa la xirinaya janaayo Gary Cahill oo Chelsea Denis Suarez oo Barca Buffon oo Boca Juniors ninka la yiraahdo Nicolas Pepe oo Lille ninka la yiraahdo Pablo Fornals oo Villarreal Eva Banego Sevilla Under oo Rome Osan Kabaq oo Galatasaray waxaan laga yaabaa inay ka tagaan Arsenal Ramsey iyo Mohamed Elneny okay kooxaha kale waa Chelsea waxa leeyahay waxa laga yaabaa bisha Janaayo inay soo qaataan Gonzalo Higuain oo Juventus Pulisic oo macnaha hadda amaha ugu jooga Milan Pulisic oo Dortmund Nabil Fekir oo Lyon Florenzo Torvin oo Marseille Eder Militao Porto waxa kooxdan ka tagi kara Gary Cahill Moses Batshuayi David Zabacosta Drinkwater iyo Fabregas Liverpool ayagu suuqa Janaayo wax badan ma doonayaan waxa la leeyahay waxay heli karayaan ama ay doonayaan Lloyd Kelly oo Bristol City u ciyaaro waxaana ka tagi kara Alberto Moreno Camacho Solanke ama ku bixi kara Orjo ama ku bixi kara Origi Weyan iyo Klein ama ku bixi kara isagu Man City waxa la leeyahay bisha Janaayo waxay keensan karayaan ciyaartooyga dambeedka bidix ugu ciyaara Ben Chilwell oo Leicester u ciyaara maadaama Mendiga dhaawac badan yahay maalin walba Frank de Jong Ajax u ciyaara Thiago Dantes oo Benfica u ciyaara waxa ka tagi kara Brahim Diaz oo Madrid ku dhow Mangala waa ka tagi raba asaguna ka tagi raba Sishenko iyo kala badan oo Minecha ku jiro United ayagu Janaayo waxay doonayaan difaaciyo iyo qadax isku jira Nikola Milankovic baa ay doonayaan Fiorentina u ciyaara Osan Kabaq Galatasaray u ciyaara Koulibaly Napoli u ciyaara Eder Militao u ciyaara Porto waxa ka tagi kara Pereira iyo Darmian okay kooxaha kale ee weyn Tottenham ugu dambeyn ayagu waxa laga yaabaa bisha Janaayo inay soo adkeeyaan waxay doonayaan ciyaartooyga lagu magacaabo Ndombele nin kale oo la yiraahdo Jared Bowen bay doonayaan Eric Bailly oo Manchester u ciyaar bay doonayaan United Grealish Aston Villa u ciyaara Nathan Ake oo Bournemouth u ciyaar ay doonayaan waxa ka tagi kara Moussa Dembele Vicente Janssen Kevin Ekandu nin kale yiraahdo Wayama Laurent iyo Vom ayaa ka tagi kara bal maanta aan ku dhaafno wararka ugu weyn ciyaaraha inta